Hello, do you speak English good? Or you speak good English? Or you speak English well? I hope in those three statements, one of them is wrong. If it happens that you have not understood the difference, keep watching and I will explain. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب الشرف له وكحرن جرينويس أونلاين أكاديمي welcome back again آدي أدي فرحتي وتهاي إن المقال كان ندوه أنا رهبو إن إنكو كل عديه لبا إري وحتى عن استعمالي لبا سإري أو كلا good and well so لبا إري وحاول دتك بدنا إسكو قلدان حتى كل لغة كل شيء native كأ واللغة الهوية تهاي so مركا استعمال كذا إن شاء الله سلار كدونا iyo jumlooyinkii haddeertaan aan idinla wadaagay oo kala ahaa luqadda ingiriisiga ma ku hadli kartaa keebaad saxsan keebaana qaldan statementyaashii hadda aan sameeyey haddaba hadday tahay markaa idinku wada soo booqanaysa insha allah ha ilaawin kanaalka inaad subscribe tirahdo oo aad rukumato oo aad ka mid noqoto familka ku xiran Greenways Online Academy si aad u barato luqadda ingiriisiga ah si fasiix ah muddo kooban okay muuqaalka inaan fahnay in kale oo casharka aan fahnay good iyo well waxay ku kala duwan yihiin siyaabada saxda ah oo loo kala adeegsado waxaan insha Allah idin diyaariyay tijaabo oo muuqaalka dhamaadkiisa insha Allah so insha Allah marka muuqaalka dhamayso si tijaabadaas aad isku soo daydo xagga commenting aad igu wadaagto insha Allah commenting ayaan kaaga sixi doonaa wixii isku day oo asaas samayso okay muuqaalka dartaan ugu galno okay hagaag haddaba saan idin sheegay muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo labadan eray oo dadka aad iyo aadka iskugu qaldaan xitaa kuwa luqadda ku dhasheen okay so marka labadan waxay kala yihiin difference between good and well are you together kuwaas rabnaa marka inaan isla aragno okay good is an adjective that describes a noun so good waa eray maaragtay oo sifo ah sifadaasoo ay faahfaahin ay ka bixiso wax walba oo noun ah noun waxaa la yidhahdaa magac okay yani magaca qof magaca meel magaca shay yeah are you together yeah waxaa la yiraahdaa noun la yiraahdaa okay let's see well okay well maxaa la yiraahdaa is an adverb that describes a verb okay well waa adverb marka okay yeah adverb kan muxuu sameeyaa wuxuu faahfaahin ka baxshaa verb ka ayuu faahfaahin ka baxshaa fal okay wax walbo verb ayuu faahfaahin ka baxshaa are you together so marka ugu horeyso waxaa muhiim ah inaad kala ogaatid labadan eray keebaa adjective ah oo sifo ah keebaa adverb ah are you together that's good okay tusaalooyin asla aragna marka si aan u kala ogaano tusaalooyinkan kuweebaa qaldan kuweebaa saxsan okay iyo siyaabaha loo kala adeegsaday good okay tusaale koobaad your English is well Englishkaagu aad ayuu wanaagsan yahay haddaba statementigaas ma sax ah mise sax maahan okay waxaan filayaa statementigaasi sax maahan wuxuu sax ku ahaan haddaba meeshan waxaan ku haysanaa noun English is a noun okay maadaama English uu noun uu yahay waxaan u baahannahay adjective ayaan u baahannahay si Englishkaasi uu faahfaahin uga baxsho so marka waxaa la rabaa meeshan si saxda ah inaan dhahno markaad qof aad leedahay Englishkaagu uu wanaagsan yahay waxaa la rabaa inaad tiraahdo your English is good and Englishkaagu aad buu u wanaagsan yahay okay is good so haddaad tiraahdo your English is well haddaba qalad waaye so well waxaad adeegsanaysaa adverb haddii meeshan wax ku jiri lahaa verb ku jiri lahaa good do you speak good English taasna sidoo kale aan isla fiirino ma sax waa mise qalad waaye okay taas waa sax waaye okay because we have waxa la faahfaahinayo waa English maxaa faahfaahinayana waxaan haysanaa sifo ayaan haysanaa oo ah adjective so haddaad tiraahdo do you speak good English adiga ma ku hadashaa English wanaagsan okay so haddaba taas waa sax so meeshaan marka good is the right one good mid xigto do you speak English well adiga luqadda ingiriisiga si wacan ma ugu hadashaa haddana sidoo kale statementigaasi sax waaye maxaa yeelay maxaa la faahfaahinayaa ficilkaasi speak ah oo hadalka are we together yeah that's good so do you speak English well haddaba taasna sidoo kale waa dhigi kartaa way saxan tahay well waa adverb waxayna faahfaahin ka bixinaysaa speakingkaas oo verbka ah ayay faahfaahin ka bixinaysaa that's good okay tusaale xiga isla aragno he is a good tennis player asaga waa ciyaartooy wanaagsan oo kubadda tenniska ciyaaro are we together taasna aan isla fiirino ma sax waa mise qalad waaye okay haddaba taas waa sax okay wixii aad tiraahdo haddaad niyada ka tiraahdo qalad waaye haddii aad sax ka tiraahdo waxay sax ay ku tahay waxa faahfaahin laga bixinayaa ninkan tennis player ah okay tennis player waa noun iswato waxaa la yiraahdaa tennis player
waa noun phrase ayaa leeyahay noun phrase iyo okay waan isla arki doonaa insha Allah casharo inoo dambeeya ayaan uga soo hadli doonaa okay yeah so maadaama meesha noun aan ku haysano good waa ereyga saxsan oo meeshan ku habboon oo ah in uu sifeeyo tennis playergaas okay tennis playergaas muxuu yahay uu aad buu u wanaagsan yahay good okay another one the tennis player plays well okay midaasna hal second aan iskula fiirin inay saxsan tahay inay qaldan tahay I hope this one also is right okay the tennis player plays well okay waxa faahfaahin laga bixinayo waa verbkan ficilkan ah plays okay ninkan sidee buu u ciyaaraa okay well okay si wanaagsan ayuu u ciyaaraa so maadaama meeshan ay well ay tahay adverb ay tahay waxay faahfaahin ka bixinaysaa ficilkan ninkaasi uu sameeyo oo ciyaarta ah together so ma dhihi kartid the tennis player plays good okay ma dhihi kartid so you cannot use adjective and waxaad faahfaahin ka bixinaysana waa verb way okay mid ugu dambaysa isla aragno you played good yani qof oo bunooni ciyaaray baarta inaad u hambaleyso okay yani si fiican baad u ciyaartay you played good okay taasna aan isla fiirino 1 second is it right or wrong okay so marka midaani waa qalad waaye waxay qalad ay ku tahay good waa adjective waa sifo waxaan meeshan ku haysanana waa verb oo played ah okay waa past tense of played are you together that's good so meesha waxaa la inaad tiraahdo you played well so taasa saxsan okay you played well are you together so marka labadan erey waa laba erey well iyo good laba erey badan dadku isku qaldaan waxaana loo adeegsadaa siyaabo isku dhow ayaa loo adeegsadaa so marka waa grammar oo dadku ay aad mistake ay sameeyaan waa qalad ay sameeyaan waa marka ay grammarka ay sameeyaan so marka insha Allah waxaan filayaa inaad fahanteen siyaabaha ay ku kala duwan yihiin are we together yeah so mar walba waa marka muhiimadda ugu horeysa waxay tahay inaad marka ugu horeysa aad ogaatid good muxuu yahay okay yeah markaasna aad ogaatid statementigaas sida loo isticmaalay jumlada sida loogu isticmaalay iyo macnaha jumlada inaad fahanted oo waxa ay faahfaahinaysaa are we together yeah sidoo kale well waa adverb waxaan nahay waxay faahfaahin ka bixiyaan verbka ay faahfaahin ka bixiyaan so marka waxaan haysanaa exercise haysanaa marka exercise-ka isla aragno aan exercise-ka aan daawano then insha Allah aan ka jawaabno xagga commentiga uga soo jawaab insha Allah waan ka saxayaa okay hagaag so exercise-ki marka waa kana waa 10 su'aal waaye insha Allah marka exercise-kan aan ka jawaabno mid war su'aal leedahay Henry is a dash singer so meesha waxa laga rabaa marka inaad geliso well iyo good keema ku habboon good Olivia sings okay hadda meesha waxa gelinaysaa either good or well the pizza tastes okay either good or well meesha gelinaysaa he did dash on the exams okay so meesha waxa gelinaysaa either good or well my grandma is 90 years old and she can see pretty so either waxa gelinaysaa meesha good or well he plays football very dash meesha waxa gelinaysaa wixii ku habboon good ma ku habboon mise well ma ku habboon Jason has the flu he does not look okay meesha waxa gelinaysaa soo kale wixii ku habboon Jack looks dash in that suit wixii ku habboon gelinaysaa how are you I am dash so you have to put it the right one are we together yeah, that's good Lisa speaks okay what gelinaysaa meesha either good or well okay but she doesn't speak French very hadaba sidoo kale wixii ku habboon ayaa meesha gelin doontaa okay that's good okay good hadaba waxaan soo gaarnay muuqaalka gabagabiisa soo gaarnay waxaana filayaa casharkaasi inaad fahanteen oo ahaa good iyo well farqiga u dhaxeeya so insha Allah marka tijaabadaas aan isku soo dayno xagga commenting insha Allah ay ugu soo qora meelahaas banbanaan wixii aad ku soo buuxisay maanta iimaanada xigta intaan ku kulmi doono waxaan ku ogaa khayr tiro badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh